xuquuqda isku dubaridka iyo bedelidda gabaygan in memory ahaan loo dhageysto waxaa iska leh maxamuud saciid maxamed maxamuud caateeye. gabayada aan sheegay waxa aan halkan gelinayaa hadda intaan xasuusto anigoo qaar fara badan ilaaway intaan ka xasuusanahay iyaan xajarada gelinayaa sidaa iyo dhagaysi wanaagsan. gabayga ugu horeeya ee aan geliyaa xajarada waxa weeyaan gabaygii uu u tiriyey maxamed yowle anigoo aan sheekada iyo sababa mas-uulka waxba gelaynin oo la wada garanayo adna aada garanayso dadkuna ay wada maqleen siday arrintaasi u dhacday. gabayguna uu si wanaagsan u tilmaamayo wixii berigaa dhacay. wuxuu yidhi allah ya raxmo cabdilaahi wasane xasan maryam iyo walaal faadumoy waana malagkeene lama mahadin duulkii jimi aa u mehersanaydeena allayda macaash lagama helin muhimbiskiiniyi maslay naga rabeen roobka oo maalmahaa da-aye geediga maroorka ah markuu maxamed baaqayay haddaan gubadda loo soo malmarin luus ma dhacanteena iyadoo milaaxay runtay oo muuno quruxeed lena xabiibkan ku dhaaftee qaryaah lagama miisteeno marba lama gasheen goolashii muruqa weynaayo manka nin uga beermaana iyo madaxda reer nuuxa malmalkiiyo waxay noqonaysa muriyo waaday ee haddii si kuubigooda mucsura maalka laga qaado naax iyo geli kama sadeen sidiisa maahiine reer faarax kama maadsadeen maycadkii dhalaye inkastoo walaalkaa la meero waad mag dhabataaye ninka maganta kaa dhacay sidii mawdka kuu yimi iyo koluu muusanaadoo gantaal murudhay soo qaato ma dhibaana reeraha layaa laguma maageen murudhay soo qaato ma dhibaana reeraha la yahay laguma maageeno maryo dhiigle iyobay ekay magacay raadsaane malow dhimicisow reer cismaan lama marqaafaysan soo maxamed yowliya dhimbiil looma mida sheegan sidii qola masaakiina oo laga muraad qaato maandhow iyo soobaryada lagama maadaysan soo maydan lama geyn warxii meel ma joogsaday ogoo magliga loo shaday oo goolashii muruqa weynaaye marba lama qasheen goolashii muruqa weynaaye mankan inuga beermaanahiyo madaxda reer nuuxe marmalkiiyo waxay noqon lahayd muriyo waabeeye haddiise seedigooda mucsura maalka laga qaado maaxiyo gadiid kama tageen sidigta maariini reer faarax kama maarsadeen maycadkii dhalay inkastoo walaalkaa la miro waad mag dhabataaye ninka maganta kaa dhacay sidii mawdka kuu yimiye kolow muusanaabo gantaal miridhay soo qaato ma dhibaana reeraha layaa laguma maageene maryo dhiigle iyobay ekayd magacay raajaani malow dhimo isow reer cismaan lama marqaafaysan soo maxamed yowli iyo dhimbiil looma midho sheegan sidii qola masaakiina oo laga muraad qaato maandhow iyo sowbaryada lagama maadaysan soo maydhna lama geen warxumi meel ma joogsaday ebuu yidhi. waa tii geelii laga daba tegay gurmad ku dhacay geel kale oo reerahaasi leeyihiin waa tii loo soo goostay geeriduna ku timi meesha. wuxuu yidhi soomaydna lama geyn marxumi meel ma joogsaday ee soomaynu marayn haddana sheekadii baa bilaabantay. wuxuu yidhi iyagoo magliga looshado maajkan militariga iyagoo magliga looshado maaju soconaya militari rasaas loo dagaal lagu malaynayo waan moodayay reer tolkay mirid ma soo ciidmay iyadoo mareerle iyo doox maahir lagu ooday iyadoo mudka iyo joomaha iyo magada yaabayso iyadoo maraha lagu akhriyay madadka yaasiinka maqrib dabadii goortii cishaa macallineedaam sidii mowdhinkii faranjiga ma isku maageer maadhiinku goortuu qarxay maydho ololaysay
yaa maali jirayey kolkii la isku meeraystay malka ragan ka dhalan baa sidkaha laga maroorshaayay inta aan mirina dhicin shaaca aan weli madoobaanin ma mulkinay cabdow diriirta waad nagu maqlayseene buu yidhi lasayeelo jawaabo wuxuu yidhi jawaabtiisii aanoo wadahayn cabdilaahiyow dhiilahaad culi tiqiiniine buu yidhi cabdilaahiyow dhiilahaad culi tiqiiniine shan gubaa rag lama caasiyaad calan lahaydeene wuxuu ilaahay u naxariista cabdilaahi yidhi gabaygaa sidiisa haddaan mar baan is yidhi ma kaga jawaabtaa maan odhanne maraakiina camar baa galoo maba cidaadaane buu yidhi ilaahay u naxariista wuxuu yidhi mar baan is yidhi ma kaga jawaabtaa malaakiina camar baa galoo maba cidaadaane wuxuu yidhi yowle cabdilaahiyow dhiilahaad culi tiqiiniine shan gubaa rag lama caasiyaad calan lahaydeene caadadii awowgaa lahaa waa cad kugu yaalle caloola cadba dhuunjooginuu cararay lay sheegi cidba uma qabtaan reerahaad u caqabsanaydeen carrabale iyo reer yuusuf baad caasha maristeen markii caabi boy laga dhigay iyaad curubis moodeen caqligaad ka wada weytihiin sida carruureede halkaasuu mari rasuul ilaahay naxariista cabdilaahi jawaabo wuxuu yidhi haddii gabay cadiin leeyahay iyo caano laga maalo haddii gabay cadiin leeyahay iyo caano laga maalo calooshayda iyo feedhuhu cimiru joogaay waagaan carruurtiiyo ahaa cunug yaroo qayd leh uu aabbahay igu curtay igu ciseeyeeni caqiidada runta iyo beenta waan kala caddeeyaaye haddiise dhalasho lagu ciilbixiyo cudud la doonayo camuudda iyo ka badan reer tolkay cawska gubadoodi haddaan nuuxa dunida camiray aan layga celinaynin aan weliba cumar daahir iyo cuurka sare sheegto in caalanku madaxayga yaal cidima kuu sheegtay baa gabayga la yidhaahdo waxaa caqadsan ninuu aabbihii cunay waraabuuye ay caaradhub kala dhaceen ciriqa feedhaaye yowle aabbihii aadan caws reer cabdi xirsi baa dilay baa la yidhi markay nin fiicanna wuu ahaa markay dileen bay waxay ku heeseen dameerba nin laadantii u watee maxaa dilka aadan caws taray dameerba nin laadantii u watee maxaa dilka aadan caws taray bay yidhaahdeen baa layidhi yaa wuxuu leeyahay waxaa caqadsan ninuu aabbihii cunay waraabuuye ay caaradhub kala dhaceen ciriqa feedhaaye oo ay biyaa wada cabbaan caasigii dilay oo ay ceelka kaga faanayaan kana cadhaysnayne in carruurta kugu maadsato cidima kuu sheegtay caloola cadna dhunjoog inuu camaliyeynayay inuu caaramuuska iyo warmaa culus ku qaadayay kol hadduu cartabo inuu nafluhu wada cabsoonayay in cashuurta loo keeni jiray cidima kuu sheegtay cashadii dagaalkii lafaah cuurkii hagar bayle curyaan iyo halkii lagu qatalay ceelka loo wehesha waa taad camuudda u qubteen cawl intii kale in ceebta gurigiina taal cidima kuu sheegtay carrabale iyo reer yuusufkaad igu cabsiinayso calool baanu wada seexan iyo meel cidhiidhiyahe iyagaan rag kaga ciilbaxaa cidho diriireed cashiirhiyo walaalinaanu nahay cidima kuu sheegtay buu yidhi sheekadu halkaa maraysay ayaa yowle gabaygii ku noqday wuxuu yidhi awalba hiilka nuux waa waxay hore u eedeene waa waxa hulqa naga dhigay iyo haybta gooniyahe awalba hiilka nuux waa waxay hore u eedeene waa waxa hulqa naga dhigay iyo haybta gooniyahe haweenkan galmada kugu hayn hab iyo maamuuse maxaan kala hadlayaa gobbaa lala heshiiyaayey buu yidhi oo wuu caytan gabayga halkaasuu higaadaanad baran qowdhanoo looma howlgale halkaasuu gabaygii mariyey cabdilaahi baa jawaabay wuxuu yidhi waayadan intaan gabay holladay habuma luuqayni
heegada maan fuuliniyo heellay wacaye hulqa waliba goortuu dirshaan hawshii gaabsaday sida hogasha roobka iyo cirkoo hooga ka helaacay kol haddaan hinjiinka u rakibo waa hirgeliyaay balan hole haadiyo wowdu way kala horeeyaan hadalkaadna tidhi maxamedowna oomaad helini hor ilaahay wuxuu kaaga dhacay helinaan toosnayn malaase haatuf baa kula hadlood la hindisoo tahay hubso hurinta nuux waa waxaad halab ku maashaan waa waxa hareeraha degee heelka kuu dhigee waa waxa markaad rag isishaan ugu haliishaay waa waxa hablaa dhalada iyo hiba ku taabteen habeen qurana kama maarantaan hooyatinkoodii habuure iyo ayda sare kolkay halab ku soo onto habuure iyo kolkay ayda sare halab ku soo onto goortaad haraad ugu goodaan haradaroo boodhle halgaad iyo ridaba cayd markii laysu hebel sheegtay annagoo dadkii wada hiroohaan wax lala waayay waa waxaad biyaha qabla-aan u harqanaysaane haadliya cadaad waa waxaad ku hadhsanaysaane waa waxaad higdaad daranta weyn ugu hobshaysaane haadliya cadaad waa waxaad ku hadhsanaysaane waa waxaad higdaad daranta weyn ugu hobshaysaane nimankii halqiga quusiye hal iyo awr laastay horweynkiina waa waxa dhex furay hoga kaliileedi haamaha jibriil waa waxay ku habranayaan goortuu hawada aadan caws haada la ciyaaray waa wuxuu tolkay igu hamiyey hiilan iyo xooge waa waxa adaa xagaf noqday hooyadaad tahay hudhud iyo iblays baad ku tahay hurinta reer shiikhe waa waxay innaga is hor joogneen naflii kula heshiin waaye sidii halaac gacmaa maxamedow lagugu hayn waaye goortaad haangaranayd iyo saliid hoosta kaga tuurtay habar yoonis kale waa kuwii haybta kaa jaray hudhud iyo iblays baad ku tahay hurinta reer shiikhe waa waxay idiin hiifayaan habar magaadlooye innaga is hor joogneen naflii kula heshiin waaye sidii halaac maxamedow gacmaa lagugu hayn waaye innaga is hor joogneen naflii kula heshiin waaye goortaad haangaranayd iyo saliid hoosta kaga tuurtay habar yoonis kale waa kuwii haybta kaa jaray haddaa sida hayaagay galaan la isku haystaaye halab kugu dhagiyey soo degdega kama hamuun goysid buu yidhi waqtigu uu iyo sheekooyinkiiba ay sii dheeraadaanba waxaa jiray gabayo maxamed aadan ama maxamed yowla tiriyey oo reero badan aflagaado u geystay reerka habar jeclo la yidhaahdo guud ahaan uu aflagaadeeyey baa la odhan karaa markuu yidhi awalba hiilkan markuu yowla yidhi ma maroodaan habar jeclaa idinku maaweelshay ma maayadu waa heestan midguu ku heesaanee tuntaan ma maayaan idiin tumay gun waa loo mashxaradaaye buu yidhi isagoo markii horena gebiyey oo samatar baxnaan u gebiyey yowle oo yidhi muddo aan yarayn baa nugaal muran ka taagnaayay ay habar jecloo mucatabi laakiin la dhaco weydinkii mooday reeraha ee maraaq lagu gubtiyo bay noqdeen muriyo waabaye allayle isaaq baa mulkiyey maxamed geeloowe muddo aan yarayn baa nugaal muran ka taagnaayay buu yahay qolaba qola maaganayd inay muquunshaane maskan iyo cagaar habar jeclo oo mucatabiyeynaysa masaakiin la dhaco weydinkii mooday reeraha ee maraaq lagu gubtiyo bay noqdeen muriyo waabaye allayle isaaq baa mulkiyey maxamed geeloowe mamaroodigii idin helay ayda miranayay gabay caynkaas iyo yowla tiri oo taariikhda loogu haya markii dambe uu yidhi mamaroodaan habar jeclaa idinku maaweelshay ma maayaan idiin tumay gun waa loo mashxaradaaye waxaa la odhan karaa isla waqti ka mida ama u dhow iyaa cabdilaahi yowle gabaygii ku celiyey ama ku soo noqday wuxuu yidhi haddii gabay macaan leeyihi iyo muunad laga dhowro ile milgii kaa xumaa alla ile milgii kaa xumaa maxamed yowlo wuxuu yidhi alla ile milgii kaa xumaa maxamed yowlowe haddaad marays tiri gabaygu waa kaa maroor sameeya wuxuu yidhi alla ile milgii kaa xumaa maxamed yowlowe haddaad marays tiri gabaygu
waa kaa maroor sameeye malka oodan buu kaaga dhacay ama mataan dheere ma jiiraha nin ragi waa inuu marin la eegtaaye layskama maqiiqee baryaa loo miiriyaaye maabkaba adaan eegan baad muuska jebisaaye ninbase meheradiisuu lahaa iyaa lagu maleeyaaye miibaad ku weynaatay iyo maangadii iyo soole bulshadaad ku maaweelisaa maydho xeradeedii majaaliista iyo gaafafka iyaan meel lagu wicine mayel weyn ismaagtaanad arag mihindiskoodii iyo maxamuud qaloombi iyo salaan baanku maakubine halka ay ka mahmaahayaan waabaad moog tahay maraakiibta kii lagu siday waa gabayga ee moorka laga gooyey iga maqal magaan yahow haddaan mawsin kuu furay haddii laba maroodoo isdilay mawdku ka adeego maroorada iyo geedkaan adkayn mariyo jeenyaaye maraaga iyo jirduubow sidii miiqdun oo kale ah waxba kama macnayn karaa toor madaxa taagaaye waxaan ahay nin reer maxameda iyo muruqyadii nuuxe manka daahir baan uga dhashay iyo madaxda waaweynee binjaa weliba sii farcamay miidha reer cumare inaan awoogay laga maarmi jirin maydho diriirteeda ama maganta xididkee la taal looga midha sheegan iyo muranku waa baayihii aad marag u haystahay anigana maskiibaa i dhalay magaca weynaaye gaar baaba igu meersan iyo malag rasaaseedee maansana nafluu way yaqaan muul inaan ahay ragga qaar mastuur uma tirsho ee way iska mirayaane darna waxay ku meermeerayaan kaan mulaaxsaday afartaas sidii mayayga roob maydin maqashiiye halkan maydal uga fuuli jiray ma u maqaameeyey annataan ka mahmaahayo iyo miilinkaad garane mataanaha reer xirsi cismaan halkaan isku maandhaafnay mageynada markii geelayaga maagga lagu qaaday waad muusanowday markay maydha ololaysay madqarkiina goortii nirgaa lagaga maalayay madiix iyo kolkay gowraceen maydablaha goolka miidaanka waataad sidii maranti taagnayday marta dumarka iyobaydin sudan meesha naagaha ee sida nimanka maayada tuma iyaad magac u weydeynay midhaa gabaygu ina aadanow maal ma dhiciyaane kol haddaanay mashaqadii ku karin adiyo maanka haddana gabayadaa isla silsiladaa ku jira waxaa ka mid a gabaygu xuseen samad wuxuu yidhi qorshe gabay markaan maxamedow qaala bixinayo qushi uma tir sheekaygu waa qiimo weyn yahaye waa sida cirkoo soo qubtay iyo qabayga heemaale sidii dhay qalbigu doonayo yaa loo qurquriyaaye buu yidhi qorshe xidid xuseen samataro waana qadiseeni qabri baad ku tuurteen hablii quruxda weynaaye habar yoonis waa 10 qoloo qaarbacan yahay qamaamuurta reer sugulle iyo qaranka caynaanshe nimankii qusuusiga ahaa qamar haddaan siiyo ama qudhacda waaweyn hadhgalo la ima qoomeene bal inay qiyaas daran yihiin yowle qoladood qolkii godarka weynaa markii qaayib laga ooday qaylada cismaanaay markuu qaanku ololayay markii qoricadkeedii iyo sidkaha qoorta laga gooyay ma qiiroonne waa tii dabkii qaarkii shidayeen qadaaraaba laydiin milay qaybtii hilibkii haddiise qoys la yaalayo habla ah qabar ku soo hoydo qoondheeye kuu dhalay halkii kama qadeeyeen midgaan la yaqaano burcajoogu aha qoondheeye haddii qoys la yaaliyo habla qabar ku soo hoydo qoondheeye kuu dhalay halkii kama qadeeyeen xoor kaba qanjiirooyinka iyaa lagaga qoofaay qaafada haweenkuna marbay qaaba jabisaay qamuunyaduna cadowga waa u qamac rasaaseed qamuunyaduna cadowga waa u qamac rasaaseed qabkayga si ka weyn inaan reerabtigay inaan qusheeyaay aduun bay qulquladaynayee waydin qariyaaye buu yidhi markaana wuxuu ay sheekadu ama silsiladii sii socotaba waan ka xumahay gabayadii maxamed yoole inaanan waxba ka haynina eraygaa dadku wada maqleen mooye aanan waxba ka hayn laakiin qof hayaa hadduu cajalada dhagaysto ama uu igu soo kordhinayo wax gabayada isla silsiladaa la isweydaarsaday qof hayaa hadduu jiro in
ama uu cajaladii ugu soo duubo ama gabayada soo qoran isiiyo waan jeclaan lahaa haddii aan sidaa u helana haddii alla ka dhigo dee marka dambe haddaan silsiladan dib u duubo labadii dhanba waan isbarbar dhigi karaa haddaba inagoo ka gudbayna oo gabayadii maxamed yoole ay iminka ay isu tiriyeen ee waaweynaa ay intaa ku dhan yihiin ama ay u badbadan yihiin laba kaluumaan ku dari doona haddii alla ka dhigo waxa weeyaan gabayga dhuxdhuxlaa namiinka wuxuu u dhowaa gabayga taariikhdiisu kala gooye iyo berigii yoole gabayga tiriyey habaryoonis uu dhex dhigay gabayga la baxay kala gooye ee uu odhan jiray irdhaa galay raggii weerarow idinku oodnaay afartaa garyahaan bay qabteen sida taariikhdiisa iyay u dhoweyd meelo badan oo haddii dee adeegtaanba referenska ama isku dhirintaa iyo taariikh ahaan ka muujinaysa inay labadaa gabay isu dhowaayeen ama uu gabaygaa ka tiraabayay uu lahaa dadka kala daa iyo halkaa yaa muuqan doonta markaad gabayga dhegaysataan dhuxdhuxlaa namiinkiiyo kufrigu wax isma dhaamaane ninkii dhowr wajile iyo jannada ama dhuxdhuxlaa namiinkiiyo kufrigu kala dhig weeyaane ninkii dhowr wajile baa jannada looga dhaargalaya waa waxa ibliis kuba ugu dhacay dhamacda naareed ee dhan kastaba ha joogeen aflii idinka dhiilo iyo dhulkii wada qasta iyo wiilashu dhalay ismaaciile isugu dhiibtay dhoomaa siciid dhamac rasaaseed isugu dhiibtay dhoomaa siciid dhamac rasaaseede nimankii aabahood lagu dhugtamay dhiigu kululaay dhallaankaba marbaa hooyadood yara dhirbaaxdaaye sidii ubad la dhalay ceeb kuwii idinka dhowraayay dhan baad uga baxdeen nuux haddaad nagu dhafnaydeene kala dhimatay reer daahirkii dhaqay xigaalka sidii dhuxunku reebka iyaad halqiga ugu dhegaysaane dharaar kaliyana lama seexataan dharaga caanaa dharaarka dhunkaasha iyo suntaa daadisay iyo dhudaha geeraarka isku dhidhinta maansooyinka dhayda ka caddaysay waa waxa dhulbahantaba uga tegay dhidibkii caymeeda waa waxa dhowaan sida libaax loogu dhiidhiyeeyay inta maxdhambaal wiigba qolo ula dhabaynayo ay dhalashadiisii iibsadeen dhowr u talinayay adna adhamida reer isaaq wada dhirqaynayso walee dhagaha cawlo wanaag idinka dheeraa buu yidhi igoo gabayadii yoole ay isu tiriyeen ama uu u tiriyey halkaa ku dhaafaya maansooyin iyo suugaan googoosa oo aan ka hayo oo aan weliba dhammayn ilaahay naxariista cabdillaahi warsame gabayadiisii iyaan ku duubayaa halkan gabayga tabaala la yidhaahdo iyaan uga horraysiinayaa waa gabay iska mujaajila ah oo mar uu cadan tegay ay ninku ugu dan lahaa waa la wada garanayaa baan u malaynayaaye ay ku kaftameen wuxuu yidhi tafsiirka iyo cilmiga shiikhyadaa laga tawaabaayay tixaa gabayga anigoo yar yaan tayb garayn jiraya markay 32gii ahayd dunida taariikhdu 18 anigoo jira teacher lay qoray markiise nin iyo tuduc loo helay yaan taydii gaabsaday ama tafmiido maansooyinkaad igu taqiiniina tamriinta iyo iskuulkaan u galay waa ka taagnahay caawana shirka igu turtee kama tiraabeen gabaygaasi wuxuu ku soo baxay anigoo wadi doona nin uu yidhi af ingiriisi iyo afaf kaloo ku baanay midda kale cad iyo goor goluhu ka gabi jirayoo tolka hadday axmed iyo daahir noqoto iyuu farfari jiray tafsiirka iyo cilmiga shiikhyadaa lagu tawaabaayay tixaa gabayga anigoo yar baan tayb garayn jiray markay 32gii ahayd dunida taariikhdu 18 anigoo jira teacher lay qoray markiise nin iyo tuduc loo helaan taydii gaabsaday ma tafmiilo maansooyinkaad igu taqiiniine tamriinta iyo iskuulkaan u galay waa ka taagnahay caawana shirkaa igu turtee kama tiraabeene
niman yahow tawaahi iyo cadan laystaxgelin waaye tanaagi iyo barmiil faaruqaa laysu tumayaaye tiiga oo la shubay qaadka oo taabka lagu haysto marka taybil loo soo dhigay laysu tabinayo tabaakaha sigaarka iyo qaxwuhu tarandac weeyaane tal markaynu nahay faanku waa tiro badnaadaaye ninba toombi gaambuusi taaha iska toocsadee kolse haddii aan wax lagu tooganayn lagu tabaalooyi tuska hore kaliishi hadduu tuura ka hilaaco tafaraaruq weeye haddii taxana loo guuro toddoboo la dhaxay geedigoo taydh la socon waayey tigaad lagu qaboobiye haddaad timid biyood weydo tacabba ay dhitaa yuusufoo lagu tabaalooyi hadday gabadhi tawsho hablaha tahan ka dheeraato tukri lagu masaariyay hadday tiirkan la ekaato toob wada xariiriyo hadday teeni soo xidhato timaa loo xardhay iyo faayaha loo tartamayaaye tufaaxeeda naasaha hadday tuug ka hanan weydo townkii la joogaba hadday toban ka sheekayso inkastay tiriigaa u eeg tahay lagu tabaalooyi haddii wiiltankiisu dhan yahay taajir waa yahay tagoogta iyo qoorta iyo hadduu turuqu weynaado toban iyo degmada oo fadhida talaxa gaaroodii toomaha madheer kale haddii tariya laga qaado tolla-ayda qaylada darbaan tegin abiidkoodi tomashada hablaa iyo hadduu turub ku meermeero oo uu xaafaduun taagan yahay lagu tabaalooyi tiriiga iyo nimaan muudharrada tuuga kala soocin oo laysankuun lagu tisaa tacaddi weeyaane turuntuurka shiikh laangob iyo togaga jeexjeexan todobkoo ku dhacay dooxyadoo tahanu duulaya taraaruma marshee had iyo goor waa tukubiyaaye kol hadduu tabgeer kaga baktiyo lagu tabaalooye ninna hadday ciradu taabato oo talada loo dhiibo 70 goorbaa wixii tagay la dhaafaaye tusmaduu fadhiistaba hadduu taxa ka luuqeeyo kol hadduu tolkuun farfadho lagu tabaalooyo gabay kalena wuxuu yidhi adduunyadu nin liitay hodaa waa hadhuub madhan meeshiiyo sidii loo halqay hoos u socotaay hadba waxay naftani haabataa hiraan la gaadhayni haddaad 10 milyuun haysato haada la ciyaarto yaa hadiyad kuu soo diraad ku hindisootaay ninka soo hor laabtana lawaatan iyo haabiile haydaaro weeyo cidlay kugu hadlaysaaye haraad iyo adoo luun qaba waxaa la yidhi markay naftu baxayso afkaad dadka qalala haydaaro weeyo cidlaa lagu halleeyaay haydaaro weeyo cidlay kugu hadlaysaaye inagoo halkaa kasii wadayna waxaynu bal iminka gabayo kale iyo googooskii baynu haatan ku wadaynaa waxaan ku xigsiinayaa gabayga la yidhaahdo waafaqo waxaa tiriyey ilaahay u naxariistay ninkii la odhan jiray salaan carabi gabaygaas sababa nasuulkiisii ama wuxuu ku soo baxay waxaa igu maqaalo ah in inankiisii curad geeridiisii loo soo sheegay salaan dabadeedna uu gabaygan tiriyey laakiin ma hubo warkaasi inuu dhab yahay sidaasaan laakiin maqlay wuxuu salaan yidhi cabdiyow wadeeciya adduun way ka bixi waaye walbahaarka waan kula qabaa waxana ii dheere aniguba wax badan baan la quuyey waali iyo qooqe fircoonkii wasiilada jannada waadiyada jeexday waarsiimo abad buu jeclaa waase noloshii rag kalaa waraytad ugu hadhay waxaddii xoolaaye wadku kama ajoon nebiyadii inaga weynaaye nafle aadan kama wiil badnayn waana kii dilaye waxyina looma soo rogin jibriil waagii dabadeed hala wariya shiikh iyo wadaad waracadii diinta culimmadu warkay sheegi iyo waanadaa dhabehe wacdi nooma laabnin naftaa walaftay shaydaani wajaq cudur waraaq malag haddaan weli fidhaah caawa isaguba halqiga wou wakiilaan waqiisnixine weji qadable weer kulul hadduu xaqa i weydiiyo eebba walaacan qabiyo waalinimadaada waayaha i haystiyo dembiga weelasha i buuxshay wanakiirka geerida godkaan weydka khoof ahay horay warinwaryadu noogu timi waaladu yahay waxshigii qubuuraha intaad iiga wehel yeesho eebba walcada haygu gubin waaqidka cadaabta maantaan wuxuushtuna maqnayn waxaad intaad uuntay ee uunkuu wada waaqif yahay wacadka meecaagta
gaalada wabiinka ah haddii loo wadiyo naarta muslimiinu ku wiirsado adaa wacay dharaartaas muslimiinu ku wiirsado adaa wacay dharaartaas wastina malaha diinta iyo kufriga wax u dhaxeeyaay miisaanka inaan waafi iman waasinka xisaabta aan waladu khayr noqon haddii weyna iga yeelo iyo inaan walaabida ku dhici weylunta iyo hooga weecaanta khaatumo waxay noqon waraaqdaydu waafaqada jeeraan hubsado waan walwalayaay warna mahaya geesay arrimi ii wacaal bixini muga inaan naftayda u walgama aakhirkaa wacani waslad maniyabaanahay asaan woofin axadkii waan waanta nololeed intaan sugo waxoogaaya wadadii xajkii iyo intaan wadanka gaadhayo weysaysi baa ila gudboon wudu salaadeedi waqtiga maan tukado geeridaa waajiboo xaqee buu yidhi cajaladii way iska dhadhowdahay markaa intaa yaree hadhay maansooyin iyo gabaya aan isku dayay anigoo maxamuud aadana iyaan bal inta hadhay ku buuxinaya anigu gabayaa ma ihi laakiin marmar baan isku yara dayaa afarre markaa afarraydaasaan bal ku darayaa bishii 8aad 3deedii sanadkii 1994 iyo maansadani soo baxday waxay la hadlaysaa ninka abwaanka ah ee Soomaaliyeed ee la yiraahdo Maxamed Ibrahim Warsame loola yaqaano Hadraawi iyo maansadani la hadlaysaa mar uu su'aalay weydiinaysaa waa iska maanso sarbeeb ah meena badan baa ku dhex jira ama ku dhex qarsoon laakiin se waxaan filayaa in la fahmi karo sida ay dhageysi wanaagsan waxay maansadani tiri go'ay waa Hadraawow garwadeenka beeshow garaadkii aqoontaba ninka guul la siiyo marka hore salaan guud marka xiga gudoon hoo galad iyo salaamba galad iyo wanaag maan kugu gudayaba loo garashada hankaagiyo gumciyada tixdaadiyo gabaygaaga toolmo waxaan gaar ku sooriyeen isma gabe afkaygan garaadkaygu wuxuu faray inkastaad guyaal badan guuxaysay maandhow misna gocashadaadii ama sabaguhaadii iyo guubaabadaadii iyo gooh iyo dareenkii dhaguhu nagalaya wax si aanan garanayn siduu noogu gees maray horta maangalaa rogo si galo abaaro gooni ku waraystay gudcadoo ma nabadba kayigeenni hooyiyo geeskii siduu yahay bari iyo galbeed iyo dhammaan gobolladeennii gacalkii ma wada yiil weli garangar mawdag guurtidu halkeedii geedkii ma joogtaa maxay inoo gorfaysaa gololada haweenkiyo hablihii garaysiyo saddex qayd ma goostaan gaadaweyn barbaartii go'yaashii awowgood ee yara guduudnaa guudka ma iska saaraan ma gudaan ciyaaraha guudcadoo halkaan rabo inaad iga wargelisaan galabtaba u jooga waxa geed lagu yidhi waa gooni shawrkiyo gafka aad arkaysay guudcadoo ma nabadba anigaba galgalashadu guyaal iyo guyaalbay gamaaldii habeenkii iyo gabiga maantii igu gaaxanayso hadba gabi dalluun iyo godad ciil ka buuxay igu sii gufayso wadnaha garkiisiyo gudihiisa labadaba walaliga gubaayee guudcadoo ma nabadba aan sii gudbootaxo nabi maxamed guudkiyo calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed guudkiyo gondihiisa hoosiyo goonyaha agtiisiyo gadaal iyo hortiisaba gallan iyo salaan goba rabbi hayga geeyee markii uu gudoonkii eebba soo gunaanaday u gorfeeyey noolaha gulsida wuxuu yidhi shaydaanku waa gocor gudihiina jooga gudcurweeye baasoo gurrac iyo colaadiyo goldolooladiiniyo gardarrada ku naaxee ka gaashaanta abidkiin gocashada xadiis kale waxaan uga gol leeyahay hasha goray darteedu iyadoo gegi dayacanbaa gulufkiiyo cadaawuhu gumcuryada ku qaadeen gayi naga shisheeyiyo meelaan la gaadhayn intay dhacan ka gooyeen xeradiina loo goob markay gaadhay fiidkii intay dhacan ka gooyeen
xeradiina loo goob markay gaadhay fiidkii day baa ku gaaxdayo candhadaa ku gorortay olol guux la mooday ku garaacday tuugii isna gorof la soo roor show gurana weligii haaneedku geesu kaga yaalla goray iyo gayaxaa la fura iyo muu barangadeediyo sida loo gaboodsado akaa hashii gaaxday ee madi gaagaxa ku beeray gaankii lahaa iyo gurmad baa ka daba yimi geeliina soo dhici guryihii ku soo celi gabdhihii iyo haweenkii gooh iyo mashxaradiyo u garaaca heelada fiidkii la soo godal gadaal bay u baydhoo geed bay ku xoqatay geeljirii wadaa yidhi maxaa diiday gacaloy waxay tidhi kumaan garan wuxuu yidhi ka soo gudub xaajigii garaadee geelaba lahaan jiray curadkiisii guunee guuleed iyaan ahay hooyadayna waa geni goray baa haddana tidhi xaajigii kamaad go'in ogow hooyadaa geni gogoldhaafka waxa baray geelaba ninkii dhacay adna garac ayaa tahay ka gadoodiyey hadalkii gacan saariyey tuluddii guun iyo walaalkii garka xadhigga soo sudhe ku googooye dabar adag gaawana la hoos tage guje iyo salaaxi guje iyo tantoomiyo gaddi ay ku eegeen iyo gacantiiba ma oggola guun baa la taliyoo waxaan idhi garaadkay haddii geedka lala tago hasha way gar joogtaa adna wuu garaabay waxa ay runtii goray gacantii ku diiday ee gocashada ku beeree anna wuu garaabay waxa ay runtii goray gacantii ku diidee gocashada ku beeray ama seba gabloolay ee gabankiiyo carruurtaa geelooda daayo gaagaabso oo soco go'aankaygii diidiyo igu saydhi gacantii anna gees isaga baxay gagab maaha sheekadu guudmar weeye hadaloo geyigoo dhan taxanoo adig iyo gugaagiyo ninka garasho dheer baa ila garan karaayee guudcaddow xalkeedii guulaheenna weeyaan guudcaddow xalkeedii guulaheenna weeyaan iyo reer galbeed iyo gagab maaha sheekadu guudmar weeye hadaloo geyigoo dhan taxanoo adig iyo gugaagiyo ninkii garasho dheer baa ila garan karaayee guudcaddow xalkeedii guulaheenna weeyaan iyo reer galbeed iyo garucuu ka tegay iyo intay gacal wadaagaan nidaamka gumaysiga iyo gaalka oo jaba heestii waan gunaanaday iyo iga guddoon hoo miyaan gabay garta saani mau naqay mise gees quraan dhigay maansadii miyaan guday tixdii ila gudboonayd mise gabidhac baan ahay geesigii yaabwaankow ila sii gorfeeyoo adiguna garaadkaa guun iyo hashaa goray bal gartooda faallee gabaygani wuxuu ka hadlayaa dhibaatada adduunka maanta ka jirta iyadoo loo kala saftay muslin iyo gaalo marka waxay muuqatay uun in muslinka maanta meel baas la marinayo oo nimanka ugu daran ee muslinka ugu xumina ay yihiin xukuumadaha iyo madaxda wadamada iyo dhulka islaamka sheegta haya baawarka marka sidaa iyo dhageysi wanaagsan adduunyadu xad bay leedahay iyo xeerar gooniyahe xume iyo xaqlaawi iyo gob baa loo xarbiyayaaye xurguf iyo xanuun baa dhex tiil tan iyo xurguf iyo xanuun baa dhex yiil tan iyo xaataaye xilligaa janjeeriyo waqtigan xaadirka maanta dulmi iyo xasuuq iyo dhacbaa loo xantoobsaday xujo iyo xasaas iyo xan iyo xurugo waa taalle xasadkii iyo waswaaskii iyo xinkaa lagu xurmeeyaay afartaasi waa xaal adduun xarakadiisii xaqiiq fakatay weeyo baryaha igu xeraysnayd xaasid alquraanka waa kuwa quraanka xaasida waa gaalada xaasid alquraanka iyo kuwa xuufta lagu sheego xashiishka iyo nijaasta iyo kuwaan galin xishoonaynin iyo dunida xaaqoy baryaha daba xusleeyaane xaaraanta waa kuwii la tagay xeebihii bariye xajka iyo dhulkii aadogeyd waa ku xuqayeeni waxay xaramka geeyeen juhliga xulufadiisii
boqortooyo lagu xoogsaday xidid u aaseeni kuwii meesha xaadxaadhi jiray bay xasiliyeeni xukunkay u dhiibeen siday xaqa u aasaani kolkaasay xagaysiiya barteen xagalka daacii raggii talada xooshow lahaa way xakibiyeeni miduu xidho xubnaa miduu ka jaro miduu xiniin gooyo miduu xelo ku taabo dhul iyo xanyar lagu waabo oo sida xuseen xaadir guro waa boqor xuseenkan urdun xukumo miduu xidho xubnaa miduu ka jaro miduu xiniin gooyo miduu xelo ku taabo dhul iyo xanyar lagu waabo oo sida xuseen xaadir gura xaadaa ka badan meel intuu dhigay xanuunkaasi falastiin xaqeedii la waa'iye xarumaheedii carab faadxayaadkiina lumixanina waa meele laga eri xamaas iyo jahaad xaafadii bariye xisbullaahi iyo wiilashii xoray noloshooda ee xalaal u diriiray war muuxiirayaan weliye xeebtii galbeed bay ilmada xiixda ka hayaani xaadaa ka badan meel intuu dhigay xanuunkaasi waa waxaad jajniya uu xalay ruusho xoogsaday waa waxaan xabaal loogu ridin xaadcadiyo wiile xadka ay maraysiiyo haddaan xarabka faalleeyo harragood waraabiya intuu xooray gaajade hilib xaydh ku taaliya rag buu xiiray oo cunaye xooflayda haadkuna ka dhereg xaamidoo guduri xubnihii qodqoday coomaada iyo xabiya dheecaani waa waxaa boosniya loo xardhee xaaladaa badae xanfaf baa ku taal wiilashii xaydsanaan jiray kolka uu xabaadh iyo kufrigu xeelad ku idleeyo iyuunbaa xafiiska janiif lagu xeraystaaye xabajoojin iyobaa baryaha laysku xadayaay xaadaa ka badan meel intuu dhigay xanuunkaasi waa waxa aljeeriya xanibay xorriyadeedii waa waxa xadiid adag kashmiir loogu xidhayaay waa waxa xadhkaa reer ciraaq loogu xaakibay intaasoo ay wada xaadhataan xeer wadaagnahay xoon walaali maantii dagaal way isku xilataay xaggii aad ka eegtaba islaam kala xawaareeyi xinjir damaq iyo hiil laguma oga xilina beenooyi waa waxay nin gaala iyo xaqiir ugu xadreeyaani waa waxay u daba xiimayaan xilhayihiinnii afartaasi waa xaalad duun xarakadiisii xaqiiq fakatay weeye baryaha igu xeraysnaydi xaadaa ka badan meel intuu dhigay xanuunkaasi xaggeennaa ka daran maalintuu xeeb ka soo degay waa gaalku berigu isticmaalku inoo yimi xaggeennaa ka daran maalintuu xeeb ka soo degay dhaqan iyo xanaankaba iyadoo xaafid nagu deeqay xariir geela xooluhu ammaan xodaya daaqaaya xito olosho xubbigii ilmaha xerada meeraysa looda gorofka xoorxoorisa iyo idaha oo xooga farda xiima xamar iyo ashkiro xakam la saaraynin geeyooyin aradkaa xoolood xiise jabinaynin hawayaanka kale oo halqigu wada xaq dhowrayo dhallinyaraha raga fiican oo xarun ka boodaysa oo sacabka xijintiis taqaan xarafna siinin sida xuural cayntii jannada dumarka oo xay ah bulsho xidid leh xeerbeegti gacal xaaji iyo guurti ummad xoroo ilaahay xusto xuma ka dheeraata ayuunbuu xabaalagu ridkii xoofna soo yidhiye markaasuu xidhkii iyo masaxay xulanaheennii xeradiiba oodi ka qaad nagu xijaabnayde waxa uu isxoodxoodiyeba lagu xayraanyi xabad iyo xiniin baa rartay xalay ma guureeni ha yeeshee xanuun buu ka tegay dhibi iyo xaaqxaaqe xafiiskuu ka kacay kii hayuu xeeladii baraye maantana xisaabtuu dhigaal lagu xawaalaayay waa waxay nin gaal iyo xaqiir ugu xadreeyaane waa waxay u daba xiimayaan xilhayaheennii afartaasi waa xaalad duun xarakadiisii xaqiiq fakatay weeyo baryaha igu xeraysnayd wax furqaanba xeer looga dhigayay xurgooftamini xalaal maaha noloshii dulmigu idinku xaaqaaye ceeb iyo gunnimo xoogba waa loo malay lama kala adkee dee waa la kala baqaayuunbaa halkaa looga jeedaa ka xanaaqa ceeb iyo gunnimo xoogba waa male ka xishooda eexduna nabsay weli xambaartaaye xunshushuuqna sabad sheegashiyo xeebashada diida isxilqaama khayrkana xasila xaqana nooleeya xidaar iyo ninkii caadilnimo idinla xiiseeya la xoodaanshay isagaa dadkaba ku habeen xigee xaamiinta diintana ka dhigay idinku xeerkiina afartaasi tala waa xilkeedii iyo xal iyo miisaani afar kalena duca xaamil iyo xadatadaydiidhi
xamdi eebbe iyo diintaan baryay iyo xarafka xamdi eebbe rabbigaan baryay xamdi eebbe rabbigaan baryay iyo xarafka yaasiini xayin daayin adigaa ah iyo xaakinkii sare xamdi eebbe rabbigaan baryay iyo xarafka yaasiini xayin daayin adigaa ah iyo xaakinkii sare xilli walaba joogow adaan ku xalmiim waxay adigaa xisaabaha ogsoon xaal kastoo dhiciye adigaa xuskaagana qalbigu ilo xubeeraaye ifka intaanu xaynahay rabbow nagu xanaanayso iilkiiyo xabaashiiyo godkana nuurka nagu xeeri xasanaadka noo badi kolkaa la is-xisaabayo xadaafiirta naaraha dabkana xulufna weydaari xadka toosan xeradii firdows xaawi nagu jeeda aamiin. xuquuqda iskudubaridka iyo ubedelidda gabaygan in memory ahaan loo dhagaysto waxaa iska leh maxamuud siciid maxamed maxamuud caateeye.